بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكودي لوليو أما كودي جولاي لبدي كوني تضبيط طبانكي مركوجو رئيسي أنا فرصة يسجين وحن هالكن همبليو يتهنيد يبقادين بوجد ريا شعبي الصومالية دون ما هي شعبي غير الصومالية ويمالن تويا أي جارو هاي أود بالدقيقة تضبيط كنتم جوردي كسورك تي maalintii ay xornimada ka qaateen gumaysigii Talyaaniga oo isla markaana ku beegan maalintii ay Israaceen ama ay isku darsadeen labadii gobol ee Ingiriiska iyo Talyaanigu ay kala gumaysan jireen anigoo munaasabada ku tahniyadeynaya ayaa waxaan aad uga xumahay khudbadii marnayd ee weyda ahayd ee uu madaxweynuhu u jeediyay shacbiga tabaalaysan ee aanu kaga hadal mudnaantooda iyo baahidoodu waxay tahay balse ku tahay magacyo dad dhintay naxariistii janna Allah ka waraabiye oo badnaa oo siyaasiyiin lahaa oo hal abuuro lahaa oo uu ku sheegay inay gobonimada u soo halgameen isagoo in badan oo ka midana taseeyay tusaale ahaan markuu soo qaadanaya Sheekh Mukhtaar Xuseen oo gudoomiyihii baarlamaanka uu ku sheegay 1969 waxaanu wada ognahay in dalku xoroobay 1960 israacuna dhacay de 7 sanadoodba cid baa gudoomiye oo ahayd baarlamaanka jaamac Abdullaahi Qaalib ina diir qaraad Axmed Sheekh ayaa soo maray marka isweydiintu waxay noqonaysaa farmaajo kuwa maloomo ooyaan buu yaqaanaa wuxuu soo qaaday Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo uu ka soo qaatay halkuleeg uu yiri isaga lahaa markii uu halkuleega sheegayna wuxuu waxaan ka soo xigtay BBC-da reer Soomaaliya iyo reer Somalilandna hadday maqlaan waxa BBC-da laga soo xigtay waxay u qaataan hadalkii mafrishka iyo makhaayadaha oo xigasho maaha taasi Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal wuxuu dhintay isagoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland isagoo aaminsan buu dhintay fagaarayaashii caalamiga ahaa ee ugu mudnaa ee uu ka sheegay mowqifkiisa waxa ka mid ahaa bishii 3aad 1993 annagoo joognay magaalada Sababa hoolka ECA-da shirarkii lagu magacaabi jiray dib u heshiisiinta Soomaaliyeed goobjoog aanu ka ahayn annagoo shirkii Boorama ka tagnay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ka hadlayay 18 urur oo Soomaaliya ka yimid ayaa fadhiyay 14 isbahaysigii Cali Mahdi bay ahaayeen 4 isbahaysigii SNA-da Caydiid bay ahaayeen khudbadiisii isagoo ku jira ayuunbu Cigaal wuxuu ku dhawaaqoon hadaad xilo dooni xamaraag joog hadaad xoolo dooni xamaraag joog hadaad xaraga dooni xamaraag joog dabeedna hoolkii baa isla oogsaday dabeedna waa kuwa qaaday Soomaaliya toosoo isku tiirsado oo hadba kiina taag daran taageero waligiin Cigaal maalintaa wuxuu yiri hadalkaasi halkii uu nadamqi jiray way bogsootay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal naxariistii janna Ilaahay ka waraabiye waa kaas waxaanu ku dhintay isagoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland aadna waxaan uga xunahay inuu farmaajo ka been sheego khudbadihii iyo tusaalooyinkii iyo tilmaamihii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxaanu aad uga xunahay inuu mar kale qaldo magacyadii hal abuurka Soomaalida حلينا وحيني عبد الله قرشه وعبد الله قرشه مو قرن وين سد حديثه مقعيو تلمانتيس تاريخ ديس وعبد الله محمد محمود حرسي oo ay dhashay dahab xirsi oo ku dhashay 1944 magaalada Moshi ee dalka Tanzania 790 baan Google-ka iyo meel walba YouTube-ka gelinay taariikh nololeedkiisa laakiin tii tahli maayo inuu baadho oo la soo baxo kaasaa doonaya inuu luuqyada xamar amaan darrada taala baabiyo waxaan dadweynaha daawanaya xasuusinayaa tudcii ahaa hasalaax الناس gulay ninkii gaagaxshaatay waxa lahaa Ibraahim Galle maasadu waa garnaqsi oo 1998 waxaanu xasuusinaynaa farmaajo 1960 wixii dhacay wuxuu ahaa israac iyo isku dar
maadaama aan soo qaaday ibraahim sheekh salebaan ibraahim gadhle xaqudirirkii aan xuduudda lahayn maruu arrintaa ka hadlayey wuxuu yidhi lixdankii dadkay markaa dowladnimadii diiqada u bixiseen degdegsiiye mooye doqonnimo ma ahayn shanta kale dab raacdaa dermo qura u gogasheen sidaan damacsanaa iyo siduu doodiyeelaa kala durugsanaadee dar alle abaalkaa waxa dumay ku suure annaga halkaasi horta naga taagan tahayoo qoomamayn mayno waxaanu islahayn soomaali wanaaggeeda ka taliyo sidaasaanu calanka idinku keennay maanta wax midnimo la yidhaa oo lixdankii dhacay ma jiro isku dar iyo israac baa dhacay midnimada cidda ay ka dhaxaysay calankaa ka markhaatiya waa xidigta shangeeska ee cad ee ku taalla calanka annagu saddexdii soomaaliyeed ee kale haddii ay door bideen inay iskood u taagnaadaan oo ay u noolaadaan raalli baanu ka nahay waanu ku hambaliyeynaynaa iyagana waxaanu ka sugaynaa oonu uga fadhinaa inay nagu hambaliyeeyaan oo ay raalli ka noqdaan waxa ay doorteen inaannu annaguna dooranno oo sidaa isku raalli ku kala ahaano walaale isjecel oo wada jiro ku ahaano reer soomaaliyana waxaanu leenahay midnimo madhan oo aan jirin cid u fadhiisanaysa oo aanu kala hadlaynaa ma jirto soomaaliya waxaana dhex maray israac iyo isku dar diyaar baanu nahay israaca iyo isku darkaa inaannu kala hadalno midnimada ka hadalkeeduna wuxuu u yaallaa shantii soomaaliyeed ay ka dhaxaysay waa haddii ay dan ka leeyihiin haddii kale annaguna dan iyo muraad kama lihin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu